waxaan si guud ahaan uga hadlaynaa bishii u dhameysay accident-yadii ka dhacay dhammaan gobolada Puntland. haddaan si kooban aan uga hadalno shilalkii bishii ugu dhameysay ee Abriil oo maanta maraysa 12 ka cisho gudahood dhacay waxay noqonayaan 60 shil. boqolkiiba doqoyno boqolkiiba 25 dhaawacyada fudud waxa weeyaan 60 kaas shil waa 12 dhaawac ah. dhaawacyada culus waa 27 gaadiidka bishan 12 ka maraysa fursada ka baxay oo material damage kooda ay noqdeen kuwa aan magaran soo kabasho lahayn waa Soodineye. xalay wuxuu ka dhacay wadada weyn ee halbowlaha ee wadnaha magaalada. shilkaasina wuxuu ahaa gaari booliis oo magaranaysa iyo gaari waxa isku dhacay bareefad oo shacaba. khasaarihii meesha ka yimina wuxuu ahaa guud ahaan labada gaadiid dadka saaran waxay ahaayeen 6 qof. alxamdulillah wax dhimasho ay ma jiraan. waxay dadka gaariga magaranaysa ka soo gaaray 6daas qof laba dhaawacaasi uu yahay midna dhaawac culus midna waa dhaawac fudud. 4 qof oo kalena way bad qabaan alxamdulillah wax dhimasho oo jiraan ma jiraan. khasaaraha material damage kana saas uma badna. sidoo kale waxa jira shil shalay subax dhacay oo ka dhacay sidoo kale caasimadda Garowe dhanka waqooyi waxa isku dhacay gaari gaadiidkan raaxada oo leeyahay Frezo iyo gaari Borobokisa. gaadiidkaas waxa saarnaa 4 qof. 4taas qof laba dhaawac fudud bay noqdeen midna dhaawac ma gaarin hal dhimashana waa jirtaa.